السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. habeen mo wanaagsan idil ahaantiinba meel kastood ka joogtaan caalamka ku soo dhowaada war waxaanu caalamka idinka haynay wararkaanu idinku hayno caawo waxa ugu dooroon maraykanka iyo fiisooyinkii dalalka uu diiday ruushka iyo ukraine canada chinaha iyo wararka ka imanaya asia oo thailand iyo wararka africa haddaan idinku horreeyo wararka maraykanka waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in habaynta fiisooyinka deganaanshaha immigrant visa laga joojin doono 75 dal oo ay ku jiraan afghanistan iiraan ruushka iyo soomaaliya tallaabadan ayaa qayb ka ah siyaasadda dib u eegista ee maamulka Trump ee ku aadan ka hortagga in dadka soogalootiga maraykanka ay ku tiirsanaadaan kaalmada bulshada laakiin fiisooyinka booqashada iyo shaqada ayaa laga reebay isbeddelkan sidoo kale wararka Ukraine iyo ruushka ayaa duqeymo culus ku qaaday shabakadda tamarta Ukraine taasoo keentay in magaalooyin badan koronto la'aan ay noqdaan habeenkii sidoo kale wararka Canada iyo China ra'iisul wasaaraha Canada Mark Carney ayaa la filayaa inuu sii wado wadahadallada ganacsiga ee uu la leeyahay Shiinaha si loo yareeyo ku tiirsanaanshaha suuqa Maraykanka sidoo kale shil tareen oo ka dhacay gudaha Thailand kadib markii wiish ku dhacay ayaa sababay dhimashada ugu yaraan 22 qof sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland ayaa daahfuray mashruuc Rajakaaba madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland mudane Maxamed Cali Aw Cabdi oo ku sugan magaalada Boorama ayaa maanta jaamacadda Camuud ka daahfuray mashruuc Rajakaaba mashruucan wuxuu diiradda saarayaa taageeridda iyo tayeynta waxbarashada caafimaadka kulliyadda kalkaalinta umulisada iyo suuxinta kor u qaadista fursadaha haweenka ee waxbarashada munaasabadda waxaa ka soo qayb galay maamulka sare ee jaamacadda Camuud agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada maamulka gobolka Awdal degmada Boorama mas'uuliyiin ka socda banka adduunka World Bank marti sharaf kale gudoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Maxamed Muuse Jibriil ayaa sheegay in barnaamijkani yahay mid wax weyn ka tari doona tayada waxbarashada caafimaadka mas'uuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiyihii hore jaamacadda Camuud Professor Salebaan Axmed Guuleed gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdirashiid Xasan Mataan duqa degmada Boorama Maxamuud Sheekh Ibraahim ayaa si wada jira u soo dhaweeyay mashruuca iyagoo ku tilmaamay fursad qiimo weyn u leh madaxweyne ku-xigeenka Somaliland ayaa halkaa ka hadlay oo bogaadiyay haweenka ka faa'iideysanaya mashruucan isagoo yiri farxad gaar ah ayay ii tahay in aan maanta goobjoog ka ahaado haweenka helay fursadan qaaliga ah haweenka cilmiga bartay waxay door weyn ka qaataan horumarka bulshada waxaan idinku dardaarayaa inaad si buuxda uga faa'iideysataan fursadaha una adeegtaan bulshada aad ka mid tihiin sidoo kale madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa sheegay in Masar Turkiga iyo Sacuudiga uu waraaq u diray Israa'iil u diro kala uu diray balse aanay ka soo jawaabin oo Israa'iil ka soo jawaabtay sidoo kale madaxweynaha ayaa fariin hanjabaada u diray Soomaaliya isagoo sheegay oo yiri halkii ay dawladdii hore Soomaaliya martay ayadun mari haddaad joojiyada waxa wadaan sidoo kale jaaliyadda Somaliland ee dalka UK ayaa isugu soo baxay magaalada London maanta iyagoo dawladda UK ka dalbaday inay aqoonsato Somaliland sidoo kale waxaa halkaa ka hadlay oo la socday jaaliyadda xildhibaan Given William oo ah xildhibaan taageera Somaliland kana tirsan baarlamaanka UK wuxuu halkaa ka yidhi waa tan leer daawada Yes! But what has happened
what happens next? So much more has to happen next. Because for far too long we have waited for Great Britain to recognise Somaliland. For far too long we've waited with patience for the Prime Minister to recognise Somaliland. And today is when it has to change, because we cannot continue to wait. Somaliland is the country that has freedom, it has democracy, it has equality. Somalia is the terrorist state. daawadayaal war waxaanu caalamka idinka hayno waa nageyntaa tan iyo tan dib u kulmayno habeen wanaagsan guys please subscribe like share comment bye